dadka naafada ah oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed waliba qayb muhiim ahna ku leh horumarka dalka ayaa waxay soo dhaweeyeen kadib markii la magacaabay ra'iisul wasaare ee dalku uu yeeshay. dadka naafada Soomaaliyeed ayaa hambalyo u diray ra'iisul wasaaraha cusub mudane Maxamed Xuseen Roble oo loo magacaabay xilka wasiirka koowaad ee dowladda federaalka Soomaaliya 18 bisha 9 sanada 2020 kana helay codka kalsoonida baarlamaanka taariikhdu markay ahayd 24 September sanadan 2020. dadka naafada ah ayaa farxad ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha cusub iyaga oo u rajeeyay guul iyo waxqabad ballaaran oo la yimaado ra'iisul wasaaraha dalka. dadka naafada ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaaraha cusub mudane Roble in uu la yimaado hal abuur iyo waxqabad ka duwan xukuumaddii isaga kaga horeysay oo ka gaabisay arrimaha naafada oo ah kuwa muddo dheer cabasho ka ahaa xuquuqda kaga xayiran golaha wasiirada. dadka naafada ayaa cod dheer ku dalbaday in ay helaan kow dhamaystirka shuruucda dadka naafada ah, labo dhismaha hay'ad naafo qaran ah, saddex abuuridda wasaarad naafo ama wasiir u dowlaha arrimaha naafada oo hoos tago xafiiska ra'iisul wasaaraha, afar abuuridda waaxyo iyo sidoo kale agaasimayaasha naafada 26 wasaaradood iyo sidoo kale wasaaradaha dowlad goboleedyada, shan ka qaybgalka siyaasadda iyo sharci dejinta dalka, 6 ka qaybgalka horumarka arrimaha bulshada, dhaqaalaha, shaqooyinka iyo sidoo kale siyaasadda. dadka naafada ah ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ay hubiyaan sharafta iyo sidoo kale karaamada dadka naafada kana qaybgeliyaan hanaanka dawladnimo ee dalka. dadka naafada ayaa ahaa kuwa muddo dheer badulmanaa lana kulmayay xuquuq qadhan ah arrinkan. dadka naafada ah ayaa waxay yihiin qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed kuwaas oo kaalin miisaan iyo mugle ku yeelan lahaa siyaasadda dalka iyo horumarkiisa haddii laga qayb gelin lahaa, balse dawladihii kala duwanaa ee dalka soo maray ayaa meel gaar ah iska dhigay soo hadal qaadida xuquuqda dadkaas oo iyagu muddaba la'aa raadinteedana ku guda jiray. xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo maray ayaa dhammaantoodba loo bandhigay in ay helaan dadka naafada xuquuqdooda, balse shakhsiyaadka loo soo magacaabay ayaa ahaa kuwa ka gaabinaya arrinkaas iyagoo ka hormarinaya dantooda mid walba. marka la eego bulshooyinka caalamka, dadka naafada ee la nool ayaa waxay yihiin kuwa si joogta u hela xuquuqdooda, waxayna leeyihiin sharciyo kala haga dadka caadiga ah iyo dadka naafada ee ku wada nool dalalka caalamka. dowladda Soomaaliya ayaana lagaga fadhiyaa gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dalka xilligan in uu soo dejiyo shuruuc kala xadaysa dadka naafada iyo kuwa aan ahayn naafada, waxaana sidoo kale laga sugayaa in qayb muhiim ah laga siiyo xukuumadda xilligan uu soo dhisay ra'iisul wasaare Roble oo dadku ayba ka codsanayaan xilligan.